oo loo raaca. alxadiisu alkhaamis can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaal laa yabuulanna axadukum fi lmaa'i addaa'imi laa yabuulanna yaanu kaajin oo yaanu kaajin oo yaanu kaajin nuunu tawkiid musaqala la socda 3 goor in lagu celiyo ayay noqonaysa markaa axadukum midkiin yaanu kaajin fi lmaa'i addaa'imi biyihii sugnaa ee aan soconaynin yaanu ku kaajin alladii laa yajri biyaha daa'imkee suganoo alladii kaas oo laa yajri aan soconaynin uma huwa yaqtasilu fiihi intaa dabadeed isagu waa ku maydhanaya yani intuu markaa ku kaajo ayuu ku maydhanaya marka maadaamuu ku maydhanayo yaanu marka hore ku kaajin yani mar layba waa ku maydhanaya baa laga tilmaamaya walimuslimin riwaayo muslim u sugnaatay waxay sheegaysaa laa yaqtasil axadukum fi lmaa'i addaa'imi yaanu ku kaajin midkiin biyihii sugnaa ee aan soconayn addaa'im waxaa loo jeedaa biyaha fadhiya ee aan soconayn wa huwa junubun walxaal huwa isagu junubun uu janaabo qabo yaanu biyaha ku maydhanin waa nahyi oo janaabadii yaanu kaga maydhan janaabaduna waa qofka inuu maydhi ku waajibto oo galmo daraaddeed ama biyo ka soo baxay daraaddeed maydhi ugu waajibto ayaa waxaa la yidhahaa janaaba wain kuntum junuban faطaharuu haddii la janaabo qabo tahaara waajibaysa marka xadiiska koowaad waxa uu tilmaamayaa biyuhu haddii ay fadhiyaan oo aynay soconayn sida balliya ay ku jiraan ama berkad ay ku jiraan ama wax la mid ah inaan lagu kaajin in lagu kaajaana waxay noqonaysaa mid aan bannaanayn bay noqonaysaa waayo wannahyu yaqtadii taxriim waxaa markaa laga fahmayaa sifada ah addaa'imi alladii laa yajrii hadday biyuhu soconayaan inaan dhibi ku sugnayn kaadida lagu kaajo taasaa markaa laga fahmaya mafhuum mukhaalafa laga qaadanaya almaa'i daa'imi markii la yidhi waxaa la raaciyey alladii laa yajri culammada qaarkood waxay yidhaheen waa tawkiidoo waa la sii adkaynayaa uun waa bayaan la sii caddaynayooo tawkiid ah waa tawkiid la sii adkaynayo laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen macno cusub inay sheegaysaa fiican in lagu xambaaro oo addaa'im baa waxaa loo isticmaalaa fii luqati alcarab 2 macne addaa'im bimacna raakid kuwa fadhiya aan soconayn waa la yidhaahdaa addaa'im kuwa wareegayana waa la yidhaahdaa oo daama taa'iru bimacnaa daara ayaa looga jeedaa shimbirkii baa wareegay daama waa loo isticmaalaa tadwiimu taa'ir waxa weeye warwareeggiisaa laga tilmaamaya marka maadaama eraygu mushtarak yaho 2 macno loo isticmaalo bimacna saakin iyo bimacna daa'ir loo isticmaalo labadaba daa'im ayaa lagu caddeeyey alladii laa yajri si looga saaro ijmaalka looga saaro loo caddeeyo ta kale waxaa dhici kartaa biyihii iyagoo meeshooda ku sugan inay dee dhaqdhaqaaqaan oo dee iskama fadhiyaane way taxarukayaanoo saakin maaha oo xaraka kama madhna haddana maca daalik ma soconayaan taa lafteeda dee waxaa la tilmaamayaa inayna xukunkii beddelayn mar haddaynay soconayn mawdicoodun ku sugan yihiin uma yaqhtasilu fiihi yaqhtasilu way rafcisan tahay yaqhtasil ma aha marka waxay noqonaysaa mid la nafinayo ma ahee uma huwa yaqhtasilu fiihi baa macnuhu dhacaya kutubta asalkaa qaarkood waxaa ugu timi fiihi bacdigoodna minhu ayaa ugu timi marka waxaa loo jeedaa kollayba waa ku maydhanayaa biyaha marka marba hadduu ku maydhanayo yaanu iska nijaasaynin dadkana ka nijaasayn waxaana laga qaadanayaa biyuhu inay nijaasoobaan oo nijaasada la kulantaa ay ku nijaasoobaan waa laysla oggol yahay haddii biyihii nijaasadu beddesho oo urtii ama dhadhankii ama midabkii 3daa mid ay najaaso isku beddelaan waa laysla oggol yahay in nijaaso noqonayaan mutanajis inay biyahaasi noqonayaan waa laysla oggol yahay haddii 3daa midnaba aynay isbeddelin biyuhuna ay fara badan yihiin najaasana la kulanto ma nijaasoobayaan mise ma nijaasoobayaan culammadu waxay leeyihiin mar haddii ay fara badan yihiin bimujaradi mulaaqaati najaasa kuma nijaasoobayaan ee 3daa sifa mid ka midii inay isbeddesho najaase isku beddesho unbay ku nijaasoobayaan ha yeeshee culammadu waxay isku khilaafeen taxdiidka qaliil iyo kasiir lagu kala xadaynayo ahlucilmiga qaarkood waxay mareen oo shaaficiyadu ka mid tahay qullatayn wixii gaadha ama ka badan ayaa kasiir ah wixii ka yarna waa qaliil culamo kalena waxay leeyihiin siyaalo kale ayay u kala saaraan qaliilka iyo kasiirka waxay u cuskadeen in la kala saaro qaliilka iyo kasiirka qullataynka lagu kala saaro xadiiskii sheegayey idaa balagha almaa'u qullatayni lam yaxmil alkhabas wa fii riwaayatin lam yanjus hadday biyuhu gaadhaan 2 jalxadood ma nijaasoobaan
in nijaasadii way iska caabinayaan waa haddii aynay isbeddelin mafhuum mukhaalafaha shardiga waxaa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen haddii qollatayn aynay gaadhine ay ka yar yihiin inay ku nijaasoobayaan bimujaradi mulaaqaati najaasa mafhuum mukhaalafaha loo deliishanaya xadiis kale waxaa soo arooray xadiisu bi'ri budaaca almaa'u tahuurun laa yunajisuhu shay biyuhu waa taahir wax taahiriya waxna ma nijaaseeyaan xadiiskaasina caam weeyo qaliil iyo kasiir lama kala saarin waana lagu ijmaacsan yahay haddii saddexda sife aynu sheegnay dhadhanka iyo midabka iyo urta ay nijaaso isku beddelaan mid ka midii inay biyahaasi nijaasoobeen waa biijmaaci alculamaa hadday haddaba yar yihiin najaasadiina la kulmaan aan saddexdaa midna isbeddelinoo nijaaso isku beddelin ma nijaasoobeen bimujaradi mulaaqaati najaasa mise ma nijaasoobin daa'ifa min ahlicilmi waxay leeyihiin ku nijaasoobi maayaan bay leeyihiin mooyaane in saddexdaa mid isbeddelo sifo oo ay najaaso isku beddesho waana qowl qawiya qowlkaas waayo waxay yidhahaan xadiiskan almaa'u tahuurun laa yunajisuhu shay wa mantuuq idaa balaga almaa'u qullatayni lam yaxmil ilkhabasana waa mafhuum mukhaalafo mafhuum mukhaalafuuna waa adcafu almafaahiim marka mantuuqaa ka xoog badan marka macnuhu wuxuu u dhici karaa haddii qollatayn aynay gaadhin oo najaasa la kulanto inay nijaasoobaan iyo inay nijaasoobin mid walba waa dhici kartaa sida nebiguba uu yidhi sala allahu alayh wasalam man samata najaa kii aamusaa ama ku kastoo aamusaa najaa waa nabadgala hadduu hadlo miyuu halaagsamay maye qad wa qad waa dhici kartaa inuu nabadgalo waana dhici kartaa inuu halaagsamo mid waliba waa suuragal marka haddaynay qollatayn gaadhin oo najaasa la kulanto waa sidaasoo kaleo qad yanjusu wa qad laa yanjus daabidka haddaba loo raacaya maxay noqonaysa waxaa loo raacayaa un saddexdaa sife bes in la eego qowlkaasaa culamo muxaqiqiini ay doorteen bacdu almuxaqiqiin waana qowl qawi ah laakiin in la yidhaahdo biyuhu haddii qollatayn aynay gaadhin oo bilaala ka dhiman yahay ama sufur bii'a baa ka dhiman qollataynkii dhibic nijaasiya hadday ku dhacdo nijaas bay noqdeen sufurkaa ka dhimani hadduu markaa la socon lahay oo qollataynka ay gaadhaanna sufurkaadiya haddii lagu shubo nijaasoobi maayaan saddexda mid ka midii haddaynay markaa isbeddelin waa qowl ghariib ah yaa waxaa u dhaxeeya biyihii waa wax yar oo in yar oo biyo'a baa ka dhiman qollataynkii ugu badnaan sufur haddii kalena waaba ka yar tahay oo bakeeri in la eg baa ka dhiman dhibicdaa markaa nijaasaynaysa in la yidhaahdo waxaanaad garanaysaa dhibicdu biyaha badan inayna waxba ka qaadayn waxna ka beddelayn haddii intaa yare ka dhimani la socon lahaydoo qollataynku dhammaystirnaan lahaayeenna caagad dhan oo kaadiya haddii lagu shubo saddexda sifuunbaaba laga eegayaayo nijaasoobi maayaan haddaan midabka ama dhadhanka ama urta intaa mid ka midi ayna isku beddelin nijaasadii waa qowl ghariib ah oo baciidun cani alcaqli ah maca daalik sharcigana ka fog waayo nooc markaa waxa weeye iska hor imaadaa ku jira maxay dhibicdu u nijaasaynaysaa qollataynka qadarkaa yari markay ka dhiman yihiin caagadda dhan ee kaadiduna ay u nijaasayn weyday haddii markaa bakeerigaa ka dhimani uu la socon lahaa marka waxa weeye calaa kulli xaal qowlka saxiixi in shaa allah biyuhu ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan waxaa laga eegayaa uun saddexdaa sifo mid ka midii nijaase ma isku beddeshay hadday isku beddesho nijaas bay noqdeen haddii kale nijaasa may noqon waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu doortay culamo kalena ay doorteen basaam laftiisuna sharxiisa waa siduu maraayo ha yeeshe wuxuu odhanayaa mashhuurka madhabka iyo shaaficiyaduba sidaa waa khilaafsan yihiin laakiin sidaas ayaa qawisan hadal macnihiisu caynkaa yahay xadiiskan kale wuxuu sheegayaa biyihii fadhiyey inaan janaabada lagaga maydhan biyuhu hadday fadhiyaan inaan janaabadii lagaga maydhan ee wax inta laga darsado meel kale lagu maydho waxaa la doonayaa tahaaradii iyo nadaafadii in lagu dadaalo ayaa la rabaa wasakhdana biyaha laga ilaaliyo taasna caafimaadkii dadka waa dhowraysaa laakiin biyuhu haddii ay fara badan yihiin oo biyaha badahoo kale ay yihiin oo biyo aad u fara badan ay yihiin noocaasoo kale hadday yihiin culammadu waxay yidhahdeen dhibi kuma sugnaa najaasada lagu sii daynaayo biyo isbeddelaya ama taghayuraya ama wax la mida aynay markaa ahayn waliba biyaha baduhu waxay leeyihiin markaa dhanaanna waa leeyihiin oo dhanaankaa qudheedu waxbay dawaynayaan oo yacni waxyaalihii markaa xumaa waa baabi'inayaan haddii markaa ayna yarayn ay tahay markaa dee bad iska dhan oo iska fadhida najaasada yar lagu soo waxeeya waxba yeeli maysa oo iska baaba'aysa